بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد أحبابت ميل كستو نغلا سوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوضا هابين أحدا waxaanu ku ballansanay inaan soo jeedino cashirkii labaad ee barnaamijkii noo soo socday dhawaanahan ee barashada salaada barnaamijkaasi oo sidaaba marka hore wadi ballan qaadna oo insha Allah taala la wadi doono martina joogto noo yahay fadiilatu Sheekh Ibrahim Macallim Nuur waxaanu ka soo hadalnay farqiga u dhexeeya dahaarada iyo najaasada oo aan rajeeyno dadkii la socday inay fahmeen kuwa hadirtaana maanta laga yaabo inuu muuqaalkan gaarana inuu jiro cashir ka horeey insha allahu tacaala maanta markaa dacleed mucaawada waxaan baran doonaa 3 mas'alo waxayna kala tahay waa maxay nijaasada meeqa nooc kala baxdaa iyo sidee loo daahirinayo nijaasada insha allahu tacaala bal waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh soo dhawow maasha allah sheekh khayr allah ku siiyo waxaan u gudagelaynaa darsigeennii waxaan rabnaa insha allahu tacaala bal inaad nooga jawaabto waa maxay tahay nijaaso waa maxay nijaaso الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نجاسة وحالي هذا أرتا ويبدن تهي أرتا اللغة إيو شرعي لهذا هي حق اللغة مركي لي هذا نجاسة وحكسو مستقدر أو نفتعي نعضو ولا قرم يستالس كي هذا حق شرعي وحالي هذا مستقدر يمنع صحة الصلاة بحيث لا مرخصة وشيء لم قرميسو لنعو أو نفتي أي نعضو مستقدر أو صلاة إني أنصح لنا كودي ليو هدي رخصة جيرين لكن واحد يتمر رخصة جرتو أو لو نقولي هاي مثلا وحاكم دي نجاسة الخمر هذا خمر هذا مكان ليه هنا وحوي معهن خمر هذا عادي وهذا أو نقان كلمة هي ووح الله وحي قفك عقلي يسبدله أي خمر لي هذا إلهي باين سبحانه وتعالى كتاب كيس عزيز كأها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام محاكد رجس من عمل رجس ومعنى ونجاسه وقرن ووسط وحاكم بدي كذا وحاكم بدي السحرة وحاكم ديجا وحاكم بدي ماشا متجا إدوان فاركا يوحي أي معناها فرع عوضها يقدرين بختها كمده tinteeda iyo cijideeda iyo maqaarka waxaasoo dhan baa soo gelaa meytoo dhan wax alla wixii meyte oo dhinto dhan waa nijaaso markii bani aadamka laga reebo iyo malaaga iyo ayaxa ama ladaayo waxaa tidhahda u taqaano marka meyta lagu leeyahay waxa weeye shay oo gowraciisa la ongolaa oo xalaal ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala noo xalaaleeyey oo la gowraca si sharciga ahna aan loo gowracin ama dad gowraciisa xalaalahayn gowracay ama shay awalba xaaraha haddii la gowrac hataa wax laguma jeedo meytadaas iyo tinteeda iyo cijideeda iyo maqaarkeeda kulli waa nijaaso markii laga soo reebo bani aadamka oo ilaahay subxaanahu watacaala uu xurmadeeyey walaqad karamnaa bani aadama ilaahay ilay iyo malaayga iyo ladayga ama ayaxa waxaa tidhahda xadiis baa nabigina ku cadeeyey sala allahu alayhi wasalam laba meytaan noola xalilay ayagoo la gowracan baa la iska cunaa ayagoo noolaad cuni kartaa ayagoo dhintay ayagoo waa kasa la guuracin baad si isticmaali kartaa gaar ahaan markii eegi doonfaarka waan sheegi doonaay nijaasooda ay waa muqallado waaba usii daran tahay nijaasa taasaa la yidhaahda marka nijaasadaasi oo hadda aan sheegnay haddii ay la kulantaa qofka muslimka ee dharkiisa ama jirkiisa ama meeshuu ku dukunayay oo nijaasa marka ay qoyan tahay ama maxalkii uu qoyan yahay jirkiisa iyo dharka iyo meesha ku dukanay ay qoyan tahay ama labadaba ay qoyan yihiin shaygaasi wuu nijaaso waa leeyahay nijaaso waay muxuu u baahnaa in la tadhiiriyo marka nijaaso saasaa la yidhaahdaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah maasha allah sheekh khayr allah ku siiyo su-aasha kaloo rabina caaw ku weydiiyo waxa way nijaasada meeqa noocee qaybsantaa miyay kala duwan tahay miyay kala culus tahay meeqa nooc qaybsan nijaasada horta laba jeer baa la qeybiyaa mar waxaa la yidhaahdaa nijaasa 3 qeyb baa loo kala qaadaa mid waxaa la yidhahdaa waa muqallado way adag tahay nijaas adag way marna waxaa la yidhahdaa waa nijaaso mutawasit tan labaad waa mutawasit oo mana adka mana fududa midna waxaa la yidhahdaa mukhafafo way fududahay saddexaas nooca loo kala qaadaa
haddina laba nooca loo kala qaadaa oo waxaa la yihahdaa cayniyo iyo xukmiyo. marka aan ku hormaro tii horo oo saddexda qayb aan u kala qaaday, tan muqalladada waa najaaska eyga ama doonfaarka ka timid waay. ey doonfaarka najaasada hadday ka imaato qoyaankooda korkooda ama kaadidooda ama saxaradooda iyo ama candhuurtooda waxooda dhan baa nijaase ah. nijaasaas muqallada la yihahdaa. ey doonfaarka ey waxay dhaleen oo faracooda uu galay xagga ridaac maahan ogow, waxay eyga nuujiyey oo doonfaarka nuujiyey maahan, waxay faracooda galay dhaleen iyo eyga doonfaarka waxay ka imaadeen nijaasadooda waxaa la yidhaahdaa muqallado. canuga yar oo 2 sano aan gaarin oo waxaan caanahayn aan isticmaalin oona wiil ah kaadadiisa waa kaado ku qeydadna kaadadiisani waxaa la yidhahdaa nijaasa mukhafafa ayaa la yidhahdaa, waa fududahay. caana bis cabe 2 sanan aanan gaarin kaadadiisa waa hadin wax kale maaha, kaadadiisa kali waxaa la yidhahdaa nijaasa mukhafafa la yidhahdaa, way fududahay, waa la fududeeyey. wixii labadaan aan ahayn mutawasida la yidhahdaa. eegii doonfaarka nijaasiisina ma ahan, canuga yaraa kaadadiisii 2 sano aan gaarin oo caana waxaan ahayn aan isticmaalina ma ahan, mutawasida la yidhahdaa. marka oo saas aad u ogaatay haddina waxaa jirta markaa lakala qaadaya cayniyo iyo xukmiyo. cayniyo maxaa la yihahdaa waa nijaasidii riix leh oo macnaha ur leh ama dhidhinkeeda ama dhidhinkeeda laga dareema nijaas inay tahay ama midabkeeda. saddexdan hadday leedahay nijaasadii cayniya la yidhahda. haddii saddexdan ay laheen ama dhidhin laheen ama ur ay laheen ama midabka bedelma aan laheen nijaaso xukmiya la yidhaahdaa. marka xukmiyaa la yidhaahdaa nijaasada. marka haddii aqsaamteeda loo baahan yahay i weydiisay 3 qayb mar loo kala qaadaa, mar labaadne 2 qayb baa loo kala qaadaa. wabillahi tawfiiq. yani mid oo adag iyo mid fudud dhexdhexaad. okay, hadda markaan kala garan nijaasa waxay tahay iyo inta noocay u qaybsanto sida loo daharina marka ilan daara la iska rabaa. dahaarada aydine waxa weeye waxay raacaysaa qaabkii aan u sheegnay. nijaasada maadaama muqallada ay tahay midda adag, waa tii eygii iyo doonfaarka iyo faracooda meeshuu gale ka imaatay. nijaasadaasay waxaa la dhaqaa 7 jeer baa la dhaqaa, 7 jeer oo muqalladada. 7 jeer midna ciid baa lagu daraa, caraa lagu daraa. waxaa weli sii fiican, xadiiskaabaa caddeeyey in ciidda markii kowliba la bilaabayo in lagu daraa fiican, taasaa wanaagsan. laakiin haddii un ciidda lagu daro 7 jeer la dhaqaayo waa okay. laakiin waxaad ogaanaysaa haddii cayni ay tahay nijaasas muqalladada tii cayniyda hadday tahay, markii ceentaas hadday saxaro tahay, hadday midab leedahay, hadday wax le markii ceenta la zuuriyo baa 7 laga bilaaba, kadib ay bilaabanaysaa bacda isaalati cayniha wey. adoo ceenta weli aan zuurin ceenta ee meesha ay weli ku sugan tahay nijaasada muqalladada 7 laga bilaabayo. eegi doonfarka iyo wixii ka imaaday muqalladada saasaa lagu daahiriyaa. waxaa ku harayaa ku xiga tii mutawasida ahayd ee dhexdhexaysay. haddii cayniyo ay tahay idina markii ceenta la zuuliyo biya lagu socodsiina, biya la shabo wax lagu siina, jarwil macmana biya inay ku daataan baa loo baahan yahay. ceenta waa in la zuuliyaa, markii ceenta la zuuliyo kadib biyana lagu shubaa. hadday ceen lahayn biyi lagu daadiyaa ay ku socdaan, biyaha lagu daadiya ku socdaan, ku qulqulaanaa loo baahan yahay. markii ay tahay xukmiyo biyahaas lagu shubo, jarwil ma iyo biyaha ku socdana ku filan. haddii ay ceentaana ceenta waa in la zuuliyaa. ceentaan kuu sheegay ama riixda urka weeye ama midabka weeye ama dhidhinka wey. waxaa ku haray tii mukhafafada aheed, waa tii canuga yaraa oo wiilka ahaa oo 2 sano aan gaarin oo caana waxaan ahayn aan isticmaalin oo haddina kaalidiisa ay tahay. haddina taasi waxaa lagu daahirayaa rashulmaayi, biyaha saas loogu firdhiyaa bis. nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam rashulmaayi bis, biyaha inay ku socdaan ay ka dhex baxaan ka daataan looma baahno. nijaaso tadhiirigeedina waa intaas idina wey. wabillahi tawfiiq. maasha allah, sheekhan allah ku siiyo. sidee marka haddii markii nijaasa gaaray ama meeshii qofku ku tukanayay sida guryaha oo kale ama masaajidkii oo kale, sidee loo daahirinaya ugu fiican marka inda meesha ku soo celiyo? tadhiirku waa badan yahay. waxa weeye meesha nijaasowday waxa lagu daahirinayaa loo kala qaadaa. haddii shilin maxal yahay, biyo waa in lagu shubaa ay ku socdaan, biyo socdo in meesha la marsiiyo. biyo haddii sidii hadda anaga reer nairobi oo kale say u badan yihiin mar intay soo qooyaan ay meesha ku tirtirayaan
wax laguma daahirin karo. biyaha waa meesha inay ku socdaan haddii maxal ay tahay. haddii dhar uu yahay ama wax lamid ah uu yahayne biyaha lagu daahirinayo haddii ay biyo badan yihiin waa gooni waa iska dhexgeli karaa. biyaha badan qulateen baa la yihahdaa. waxaa lagu qiyaasaa 216 litir 216 litir haddii u kale yihiin waa iska dhexgeli karaa. haddii biyaha isbedelaan maane si kale kuma nijaasobayaan. haddii kalena biyaha waa in lagu shubaa biyaha saas loogu shubaa. haddii la dhexgeliyo macal biyaha hadday yaryihiin waa nijaasobayaan. wabillahi tawfiiq. maasha allah sheekh khayr allah ku siiyo. darsigeeni labaad ee uga hadlaynay dahaarada iyo mawduuca barashada salaada intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa. hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.